bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa 22 janaayo 2026 qodobada aad warkeena ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya heshiis ay maanta meel mariyeen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. haddaba heshiiskaasi muxuu yahay, waxyaabaha uu dhigayo maxaa qayb ka halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. waxa kale oo aad maqli doontaan Cabdiraxmaan Ciro oo la kulmay madaxweynaha Israa'iil iyo wiilka Trump. halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa waxyaabihii ay wadaageen wiilka Trump iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro kulankii ay yeesheen madaxweynaha Israa'iil. waxyaabihii ka soo baxay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. waxa kale oo aad maqli doontaan dowladda Sacuudiga oo ballan qaaday in Imaaraadka ay gabi ahaanba ka sifayn doonto badda cas. haddaba muxuu yahay qorshaha culus ee ay wado Sacuudi Carabiya? halkan ayaan sidoo kale idinkula wadaagi doonaa. soo dhow haddii aad inagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar, muuqaalkii noo like garay, asxaabtaada la wadaag, aragtidaadana inoogu soo gudbi qaybta faallada. mahadsanidin. golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta shirkoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda guud ee dalka iyo amniga, iyada oo sidoo kale shirka lagu ansixiyay heshiis is-afgarad ah oo aad muhiim u ahaa. shirkan oo uu gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa lagu meelmariyay heshiis is-afgarad ah oo u dhaxeeya maamulada dekedaha BSC ee gobolka Badweynta Hindiya oo ay soo gudbisay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyo siyaasadda boostada Soomaaliyeed ee 2025-2030 oo ay soo diyaarisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dalka. heshiiskan ayaa gacan ka geysanaya hubinta badbaadada, ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale kordhinta kalsoonida dekedaha. sidoo kale shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan siyaasadda maareynta waxqabadka isku dhafan ee hay'adaha dowladda iyo shirka wadatashiga siyaasadda ee ay xukuumadda dan qaran ku dhawaaqday. dhinaca kale, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo qoraal soo saaray ayaa u mahad celiyay golaha wasiirada ee meel mariyay heshiiska cusub ee u dhaxeeya maamulada dekedaha BSC ee gobolka Badweynta Hindiya. waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa golaha wasiirada oo maanta meel mariyay is-afgaradka ka dhaxeeya maamulada dekedaha BSC ee gobolka Badweynta Hindiya. is-afgaradkani wuxuu xoojinayaa iskaashiga iyo xog wadaagga dalalka gobolka, wuxuuna gacan ka geysanayaa hubinta badbaadada, ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale kordhinta kalsoonida dekedaha, ayuu yiri wasiirku. sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in ay ku dadaali doonaan horumarinta dekedaha iyo danaha qaranka si Soomaaliya ay u gaarto isku filnaan buuxda. waxaa naga go'an hirgelinta shuruucda muhiimka u ah danaha qaranka si loo helo bad ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, ayuu mar kale yiri wasiir Jaamac. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, madaxweynaha maamulka Somaliland, ayaa la kulmay madaxweynaha Israa'iil iyo wiil uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ku sugan magaalada Davos ee dalka Switzerland ayaa kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog iyo sidoo kale wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ee lagu magacaabo Eric Trump oo ay ka wada hadleen arrimo xasaasi ah. kulanka Ciro iyo Isaac Herzog ayaa waxa uu diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka u bilaabmay Tel Aviv iyo Hargeysa iyo sidii loo dhameystiri lahaa heshiisyada ay gaareen labada dhinac. Cabdiraxmaan Ciro oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ka hadlay kulanka, wuxuuna sheegay in diiradda lagu saaray arrimo ku aadan xoojinta xiriirka labada dhinac iyo aqoonsiga Somaliland, kaas oo ay Israa'iil ku dhawaaqday dhammaadka sanadkii hore. waxa aan xalay kulan casho sharaf ah ku wada qaadanay Davos, shirka dhaqaalaha adduunka World Economic Forum, madaxweynaha dowladda Israa'iil mudane Isaac. kulanka waxaan diiradda ku saarnay xoojinta iyo horumarinta xiriirka, ayuu qoraalkiisa ku yiri madaxweynaha maamulka Somaliland. sidoo kale wuxuu intaas ku daray in kulankan ay goobjoog ahaayeen hogaamiyaal caalami ah oo ka socda dalalka caalamka, isla markaana uu ka mid yahay wiilka madaxweynaha Mareykanka Eric Trump. kulanka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay siyaasiyiin culus, hogaamiyaal caalami ah oo ka kala socday dhammaan daafaha dunida iyo shakhsiyaad saameyn ballaaran ku leh masraxa caalamiga ah
oo uu ka mid ahaa Eric Trump wiilka madaxweynaha Mareykanka ayuu mar kale yiri Cabdiraxmaan Ciro. dhankiisa madaxweynaha Israa'iil ayaa bartiisa Twitter ee X waxa uu ku baahiyay sawirada kulanka dhex maray isaga iyo Cabdiraxmaan Ciro, wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay la kulanka madaxweynaha maamulka Somaliland isaga oo rajeeyay inay sii socon doonto wada shaqayntooda si looga miro dhaliyo dadaalada socda ee labada dhinac. waan ku faraxsanahay inaan Davos kula kulmo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. aad ayaan ugu faraxsanahay xiriirka inaga dhaxeeya. waxaan rajeynayaa inaanu ka wada shaqayn doono sidii loo sii adkeyn lahaa, ayuu yiri madaxweynaha Israa'iil. si kastaba haatee kulanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee madaxweyne Ciro la yeesho madaxweynaha Israa'iil tan iyo markii lagu dhawaaqay aqoonsiga oo ay wada saxiixeen isaga iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. boqortooyada Sacuudiga ayaa wada in gebi ahaanba ay ka tirtirto aagga badda cas Imaaraadka Carabta. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa hadda u dhaqaaqday in ay weeqdo soona xirto saameynta ay Imaaraadka Carabta ku leeyihiin badda cas iyo geeska Afrika kadib markii khilaaf culus oo ka dhashay dalka Yemen uu banaanka soo dhigay loolan hoose oo u dhaxeeya labada dal ee khaliijka ah ee xulufada ahaa, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wargeyska Washington Post. kala aragti duwanaanshaha ayaa soo shaac baxday toddobaadyadii la soo dhaafay, gaar ahaan koonfurta Yemen, halkaas oo ciidamo gooni goosad ah oo Imaaraadku taageero ay qabsadeen dhul, taas oo keentay in Sacuudiga soo farageliyo si uu u taageero dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay. Riyadh ayaa duqeysay xoogaga gooni goosadka waxayna sheegtay inay beegsatay shixnad Imaaraadku leeyahay oo lagu eedeeyay in ay siday hub loo waday kooxdaasi. dhacdadaas kadib Imaaraadku wuxuu si degdeg ah ula baxay ciidamadiisii, waxaana burburay golihii hoggaanka ee gooni goosadka ahaa. falanqeeyaasha ayaa tallaabadan degdeg ah ku tilmaamay mid dib u qaabaysay miisaanka awoodda ee marinka istiraatiijiga ah ee Bab el-Mandeb, oo ah marin biyood aad muhiim u ah iskuna xira badda cas iyo gacanka cadmeed. diblomaasi Sacuudi ah oo la hadlay Washington Post ayaa sheegay in fiditaanka Abu Dhabi ee hareeraha badda cas uu ka hor imaanayo aragtida Riyadh ee ku aadan in aaggaasi yahay soonka amniga ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. wuxuu intaasi ku daray in Sacuudigu uu hadda doonayo in uu muujiyo khadadka cas ee aan la ogolaan karin in laga soo gudbo. muddo sanadaha Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay u shaqaynayeen si wada jir ah iyagoo taageerayay hogaamiyayaal xulafo la ah kadib kacdoonkii Carabta, isla markaana dhistay isbahaysi ka dhana Xuutiyiinta Yemen ee Iiraan ay taageerto. si kastaba haatee warbixintu waxay tilmaamtay in danahooda ay kala leexdeen, Sacuudiga oo xoogga saaraya ilaalinta awoodda dowladnimada, halka Imaaraadku uu ku tiirsan yahay kooxo hubaysan oo maxalli ah iyo saldhigyo ganacsi si uu u ballaariyo saameyntiisa. wargeyska ayaa wariyay in Sacuudiga uu dhowaan xoojiyay isbahaysiyo kale oo gobolka ah, isaga oo wada hadallo la furay Soomaaliya iyo sidoo kale Masar oo ku aadan iskaashi dhinaca amniga ah. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa joojisay heshiisyada militari ee ay la gashay Imaaraadka, dalkaas oo dano dekado iyo sidoo kale saldhigyo militari ku leh deegaanada Somaliland, Puntland iyo Jubbaland. sidoo kale xogta duulimaadyada ee uu soo xigtay Washington Post ayaa muujisay in diyaaradaha ka imaanaya Imaaraadka qaarkood ay bedeleen jidkooda si ay uga fogaadaan hawada Masar, Sacuudiga iyo Soomaaliya. falanqeeyaasha ayaa aaminsan in duulimaadyada ay xiriir la leeyihiin taageerada kooxaha Imaaraadka xulafada leeyahay ee colaadaha ka jira Afrika sida Chad, Liibiya iyo Suudaan. isbedelka halkan ka dhacay waa mid weyn, waxaa sidaas yiri Liam Carr oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute, wuxuuna xusay in xoogaga Imaaraadku taageero ay u muuqdaan kuwa qarka u saaran in ay la wareegaan gacan ku haynta labada dhinac ee marinka Bab el-Mandeb ka hor inta uusan Sacuudiga soo faragelin. warbixintu waxay intaas ku dartay in walwalka Sacuudigu uusan ku koobnayn Yemen oo kaliya, balse uu gaarsiisan yahay geeska Afrika, halkaas oo Imaaraadku uu maalgashi culus ku sameeyay dekado iyo kaabayaal militari. waxaa si gaar ah loo xusay xarumaha berbera ee Somaliland iyo saldhig ku yaala Boosaaso oo Puntland ah oo khubaradu ay sheegeen inuu taageero u fidiyo howlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyo saadka gobolka. ugu dambeyntii Washington Post waxay sheegtay in Sacuudiga uu hadda miisaamayo tallaabooyin ballaaran oo uu kaga hortagayo awoodda Imaaraadka, ma aha oo kaliya Yemen, laakiin waa guud ahaan wadamada nugul ee gobolka, halkaas oo labada quwadood ee khaliijka
ay ku tartamayaan saameynta amniga, dekadaha iyo siyaasadda. guud ahaan saaxiibayaal warbixinteena inta ayaan kusoo koobaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janaalka inagu soo biirto, subscribe inoo saarto, muuqaalka inoo like garayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbiso qaybta faallada. mahadsanidin.